بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي baa mahadsan subxaanaه وataعaalى lahu الxamdu fi الأولى والآkhirة وlahu الxukmu وإilayhi turjacuun. walaalayaal, ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku waajib yeelay dadka muslimka ah inay gutaan fariidada xajka ah. ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istadaaca ilayhi sabiila. allah wuxuu ku leeyahay dadku inay u xajiyaan gurigiisa qofkii kara. wuxuu ilaahay ku yidhi suurad kale waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaala wacalaa kuli daamirin ya'tiina min kuli fajin camiiq. sidoo kale nebigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay inuu xajka ka mid yahay tiirarka islaamka ee shanta ah. kan koowaad waa shahaadateynka, qofka inuu qiro laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah. kan labaadna waa salaada, oo qofka inuu ogo salaada. kan saddexaadna waa zakada. kan afraadna waa xajka. kan lixaadna kan shanaadna waxa weeye soonka. riwaayadaha qaarkoodna waxay dib marinayaan xajka wa xaju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila. haddaba sidaa haddii ay tahay oo xajka waajib uu yahay, nebigana calayhi salaatu wasalaam uu ka dhigay rugni min arkaan alislaam, dadka muslimiinta ahi daa'iman waxay aadaan oo ay sanad walba u baxaan si ay usoo gutaan fariidadaasi xajka waajibka ah. caalamka oo dhan ayaa la isaga imaanayaa. dadka soomaalida ahna waxay ka mid yihiin dadka aado gurigaas alle subxaanahu watacaala oo xajka soo guto. sanad walba waxaa baxo dad ku dhow 10,000 oo qofood soo gudanayso waajibkaasi sharciga ah. sidaa darteed marka dadka culimada ah iyo aqoon-yahanka waxaa saaran si dadka ay u noqoto waxa ay gudanayaan wax sax ah, inay u caddeeyaan, baraan waajibkaasi ilaahay saare subxaanahu watacaala siday u gudan lahayeen. maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadda baray siday xajka u gudan lahayeen. culimada marka waajibka ayaa saaran inay dadka baraan xajka sida loo guto, ay u caddeeyaan. marka anagoo gudanayna waajibkaasi ayaa waxaan go-aansanay in aan duruustani halkan ka soo jeedino. darsigeenna wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala inaan marka hore ka hadalno si kooban axkaamta guud ahaaneed ee xajka laga rabo iyo cumrada. kadibna waxaan geli doonaa darsi kale oo ah tadbiiqi ama inaan baractikayno qaabka loo guto acmaasha xajka iyo sida muxuu ahaye qofka inay tahay inuu sameeyo. qodobka noogu horeeya walaalayaal waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ee nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu usoo diray inuu diinta caddeeya. maxaa yeeley diinteenna waa diin ku dhisan cilmi, ma aha qofka inuu siduu doono iska sameeyo ma aha. waxa ugu horeeya aan sheegana waa fadliga xajka uu leeyahay. si kooban haddaan u sheegno, qodobka koowaad waxaad gudanaysaa rugni ka mid ah tiirarkii islaamka. oo haddaad shalay soomi jirtay, oo aad muxuu ahaye zakada bixin jirtay, oo aad shahaadateynka ku dhawaaqday, maanta waxaa ku dhammaystirmaayo rugnigii shanaad ee tiirarkaaga islaamka. waa fadliga ugu weyn waay. qodobka labaad, nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka xajiya gurigan oo aanan hadal xun la imaanin, ficil xunna aan la imaanin, man xaja hada albeyt falam yarfuth walam yafsuq, wuxuu soo noqonayaa rajaca min xajihi ka yowmi waladathu ummu, sidii isagoo ah maalintii hooyadii dhashay. waxaad meesha ku helaysaa marka waa dembi dhaaf. xadiidkii camar ibni caasna waa ogtihiin, nebiga calayhi salaatu wasalaam camar uu ku yidhi yaa camar amaa calimta, camaru miyaadan ogeyn in xajka uu buriyo wax alle wixii dunuub oo qofka intaa ka hor uu sameeyey. sidoo kale walaalayaal, xajka wuxuu ku jiraa siduu nebiga noo sheegay
min afdali alacmaal acmaasha ugu fadli badan marka laga soo tago iimaanka iyo jihaadka fii sabiili illah. xadiidkii saxiixa ahaa ee rasuulka la weydiiyey afdalu alacmaal wuxuu ku soo daray iimaanu billaah uma maada aljihaadu fii sabiili illah uma maada alxaju almabruur. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku yidhi fadliga marka aan tilmaamayno abaalgudka xajka uu leeyahay waa un janno. nabiga wuxuu yidhi alcumratu ila alcumra kafaaratu lima baynahuma. labada cumro cumradan iyo cumradan inta u dhaxayso qofka wuxuu helayaa dembi dhaaf. waalxaju almabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna. xajka la aqbalayna mabruurku waa xajka la aqbalay ma lahan isaga abaalgud kale oo aan ahayn inuu ilaahay jannadiisa helo subxaanahu wa tacaala. sidoo kale walaalayaal xajka wuxuu leeyahay runtii arrimo aad muhiim u ah oo ay ka mid tahay xajka wuxuu muuqaal ka bixinayaa oo uu ku barayaa dadka muslimiinta ah midnimadood markii meesha la isugu tago oo dad kala af ah kala midab ah kala deegaan ah isku yimaadaan oo hal camal ay gudanayaan waxaa muuqanayso waxdada iyo midnimada dadka muslimiinta ah. xajka waxaa lagu baranayaa walaalayaal in aad aragto dadkii dhammaantood oo siman. waxaa lagu baranaya marka waxa la yidhahdo taxqiiq almusaawaat, sinaanta ayaa lagu baranaya oo qof ka fadli badan inuusan jirin oo carab iyo cajam dadku iyagoo ah dhammaantood meesha ay wada joogaan hal camal ay sameynayaan. madharka kale oo muujinayo muxuu ahaaye xajka waxaa ka mid a walaalayaal in aad soo aragto meeshii diinteenna islaamka ilaahay uu ku soo dejiyey, kacbadii intaasoo sano a u dukanaysay, halkii nebiga uu ku dhashay calayhi salaatu wasalaam, halkii saxaabada ay deganaayeen, halkii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku aasanaa iyo saxaabadiisa ay ku aasan yihiin. yacni wahluma jar waxaad arkaysaa xaqiiqdii saxaabadii say u noolaayeen rasuulka sala allahu alay wasalam iyo noocyada ay ahaayeen. marka waxaan leenahay qofkii ilaahay waafajiyey subxaana wa tacaala inuu xajka aadana ay noqoto fadaa'ishaasi iyo qiimahaas badan ayuu xajka leeyahay. caaisha nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tiri rasuulka allo miyaanan jihaadayn markii fadligii jihaadka uu ka warramay nebiga. markaasuu caaisha nebiga wuxuu ku yidhi caaishoy xajkiinu waa jihaadkiinu waa xaj iyo cumro. marka xajkaasi iyo cumrada waa jihaadu asagiiri waadaciifi waalmar'ati. marka qofka yar iyo muxuu haweenka oo dhan waxa waajibka ku ah ma aha iyagu inay baxaan oo ay aadaan jihaadka, waxay aadayaan xajkaasi ayaa jihaad u ah. arrimahaasi marka walaalayaal waxay tilmaamayaan meeshaasi inay tahay wax fadli badan aadna u qiimo badan, qof kastana naftiisa ay jeclaanayso inuu halkaasi aado u mahanayo. marka annagana dhammaanteen saas ayaa la doonaya. xajka walaalayaal axkaamtiisa guud ahaan waxaa ka mid ah marka aan xajka ka hadlayno, xajka waa in qofka uu u qasdo guriga alla subxaana wa tacaala. meel kale xaj ma noqonayso. xajka waa inuu qofka maka tago, beytka ilaahay uu tago, acmaal gaara uu sameeyo oo sida dawaafka iyo sacyiga iyo xiirashada iyo waxa la midka ah. kaasaa waxaa la yidhahdaa xaj. iyo wuquuf carafa, mabiit musdalifa, iyo inuu seexdo muxuu ahay mina. acmaasha noocaas oo dhagxaanta u tuurto, camalkaasi sidaasi ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu waajib yeelay oo nebigana baray, camalkaa gudashadiisa ayaa xaj la yidhahdaa. meel kaloo xajka ka suuragal maaha. cumradana sidoo kale weeye, waa gudashada la guto, yacni sacyi iyo tawaaf iyo maxaa la yidhahdaa iyo xiirasho iyo iyadana waxaa la yidhahdaa iyo ixraamkii oo lala yimaado cumro ayaa la yidhahdaa. marka iyadana waxay suuragal ka tahay keliya oo ka dhici kartaa halkaasi qofka in u tago oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caabudo. xajka iyo cumrada walaalayaal waxay leeyihiin shuruudo oo laga rabo qofka doonaya inuu xajiyo in laga helo. dee waa waa islaamnimo oo qofka haduusan muslim ahayn camalkiisa ma ansaxayo. waqadimna ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu haba'an manhuura yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim hada. marka qodobka koowaad oo muhiimka waa maxay? waa islaamnimo, qofka muslim waa inuu yahay. kan labaadna waa inuu qaangaar yahay oo xil iyo oo waajibaad ay dushiisa saaran yihiin. hadduu saqiir yahay oo xajiyo waalidkiisa ay wadaan, ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka aqbalayaa, waalidkuna ajar ay ka helayaan, laakiin xajatulislaamkii kama ridayso, wuu ka ansaxayaa. sidoo kale qofka waa inuu leeyahay caqli leeyahay oo qof waalano majnuun aan ahayn, waa inuu xur yahay oo awoodiisa muxuu ahay naftiisa isaga maamuli karo oo aan sayid loo ahayn. laakiin kuwan dambe haddii ay xajka aadaan oo gutaan wuu ka ansaxayaa, laakiin xajatulislaamka waa lagu leeyahay. sidoo kale waxaa iyadana muhiim ah qofka inuu awood leeyahay
awooddaas oo noqonayso inuu gaadiidka uu ku bixi lahaa inuu heli karo yacni takaaliiftii ama qarashkii naftiisa intuu meesha joogana isticmaali lahaa, dadka uu ka tegayna wixii muxuu ahay intuu ka maqan yahay uu sii siiyo. waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta oo muhiim ah amnu ariiq. kutubta fiqiga ku arkaysid waa in meesha qofka inuu tago suuragal ay tahay. haddii laakiin asoon awoodin uu tago ama asoo jidka amni uusan ahayn uu tago xajkiisa uu ka ansaxaya, ilaahayna uu ka aqbalaya, laakiin ma ku waajibayo, asiga laguma lahan. hadduu isaga aado waa gooni. waxaa la intaa dheer gabadha muslimadda ahi waxaa laga doonayaa iyada xajkeedu waxaa shardi u ah in uu maxram joogo, wujuuda maxram la-aantaas nebiga wuu ka dayriyey, xadiid saxiixana waa ku soo arooray, waana la wada yaqaanaa oo gabar inaysan safrin yacni muxuu ahay meel habeeni maalin loo dhaxo ilaa maxram inuu wato. maxramna waa dadka iyada mas-uuliyaddeeda qaaday oo aan muxuu ahaye guursan karin oo muxuu ahaye ka xaaraam ka tahay waxaa lamida muxuu ahaye caruurteeda oo kale iyo ama dadka xagga muxuu ahaye kaga yimid sida ninkeeda iyo muxuu ahaye dadka xaggaas macnaha zawaajka ama sehrada kaga yimid sida ninkeeda oo kale, dadkaas oo kale maxram ayay u yihiin. waxaa la mid a wiilka ninkeeda u dhalay oo kale, waxaa la mid ah ilmaheeda iyada ay dhashay, ilmaheeda ilmihii ay dhaleen, waxyaalahaasoo dhan waaye. marka laakiin ma aha qofka inay iska baxdo iska aado, maxaa yeele ilaahayba kuma uusan waajib yeelin. haddii ay baxdo ay xajkii gudato ka waran, culimadu waxay leeyihiin waa ka ansaxaya, laakinaha caasiya waa caasiday, casyaan ayay la timid. marka laakiin marba hadduusan ilaahay kugu waajib yeelin la iskuma dhibo. marka la leeyahay istidaacada marna waa mubaashir, adigaa toos u awoodi karo inaad baxdo xajkii soo gudato, sida inaad jidkaaga caafimaad qabo, jidka uu amni yahay, wasiilada safarka ee ku fududahayo fiisi waxa heli karto, arrimaha noocaas oo kale wey. ama si kale mubaashir ah haddaadan bixi karin inaad maalan ilmahaaga ay kaa xajiyaan ama qof kale wax la siiyo, yacni qarash aan zaa'id ahayn oo qofka caadiga uu ku xajin karo inuu qof kale kaa qaato. marka arrimahaas weeye arrimaha shuruudaha ah oo qofkana looga baahan yahay si xajkiisa uu ansaxo. xajka iyo cumrada labadaba arkaana ayay leeyihiin, waa isku mid. xajka arkaamihiisu ay badan yihiin, waxaa ka wada dhexeey ixraam in la helo, oo xarmashadu waa sida takbiirat lixraam. salaada markaa gelayso waa inaad xirmasho la timaado, ixraamkaasi waa qodobka ugu horeeya oo xajka laga rabo. qodobka labaadna waa inuu qofka carafa istaago, alwuquuf bicarafa, saacad ba allaha ka dhigo. laakiin haddii aadan carafaba tegin xajkaaga ma ansaxayo, rugni muhiima kaa maqan. waxaa la mid a dawaafka qofka inuu sameeyo beytka ilaahay, inuu dawaafo, yacni iyadana shuruud iyo sunan iyo waajibaad u gaar ah ayaa jiro. mid kasta waqtigiisa ayaan si faahfaahsan u sheegi doonaa. oo markuu dawaafayo xaguu ka bilowdaa, xaguu ku egyahay, xagee la dawaafayaa, masaajidka banaankiisa miya gudihiisa, waxaasoo dhan waa sharxi doonaa insha allah. waxaa la mid a asacyu, sacyiga waxaa weye bayna asafa walmarwa, inuu qofka orodka socodka inuu sameeyo, meel dhexa ayaa jirto la ordaayo. marka ilmahaasoo dhan waa sharxi doonaa, laakiin guud ahaan iyo sidoo kale inuu qofka markuu acmaasha dhameeyo uu xalqiga la yimaado ama tinta iska gaabiyo ama uu xirto. cumradana waxaa ka maqan waxaa weeye wuquuf bicarafa ayaa ka maqan. xarmashadaasi marka waxaa loo jeedaa qofka in uu niyad la yimaado uu xajka ku galaayo. marka niyaddaasi aad la imaanaysid, waxaa marka muhiima inaan fahmno in 3 nooc loo xirto xajka, oo xajka xirashadiisu 3 nooc wey. mid waxaa loo yaqaanaa ifraad, midna waxaa loo yaqaanaa tamatuc, midna waxaa loo yaqaanaa qiraan. ifraadku waa keliyeelid. waxaa loo jeedaa ifraadka inuu xaj keliya inuu niyeysto oo xaj keliya uu xarmado oo miiqaadkiisa uu ka xarmado. qofka marka haddii uu ka faaruqo oo xajkiisii uu dhammaysto, markaasuu cumro gadaal kala imaanaya, cumradiisa ayuu gadaal la imaanayaa. waana ogtihiino madhabteena shaaficiyada ah midka ay u yaqaanaan inuu u fadli badan yahay, nabigaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam, saas ayay leeyihiin. sidoo kalena dhiig waxba kama waajibayo isaga. marka ifraadkaasi ayay culimadu shaaficiyada qabaan inuu u fadli badan yahay. kaasi marka waxaa nidhi kan koowaad waa ifraad. kan labaad waa atamatuc. tamatuc waxaa la yidhaahdaa qofka xaajiga ah ashhurulxajka oo aan sheegi doono bilaha xajka sida shawaal iyo dilqacda iyo bisha dilxija ama muxuu ahaye soonfur iyo siditaal iyo 10 ugu horeeya carafo, inuu qofka xajka xarmado, cumrada xarmado, cumradiisii uu guto, iska xalaal noqdo ilaa laga gaaro yawmu tarwiya uu xalaal iska ahaado.
mutamatic ayaa qofkaasi la dhahaa. kadibna maka ayuu xajkiisa ka xarmanaya. marka waxaa looga baahan doonaa isaga dhiig ayaa looga baahan doonaa. faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi. qodobka kaloo saddexaad oo qofka xaajiga qofkan yani qodobka saddexaad oo xajka loo xarmado ifraad iyo tamatuc qiraan ayaa la yidhahdaa. qiraanka waa maxay? sida ereyga ka fahmaysid waa wax xiriirsan. waa inuu ixraamto bilxaji walcumra macan. marka isku xirayaa baynahumaa fi ashhur alxaj. marka acmaashii ayuu la wada imaanayaa kaamila. acmaashii cumradana wuxuu dhex gelinayaa camalka xajka. waxaana macnaheed uu yahay hal dawaaf keliya ayaa ku filnaanaya iyo hal sacyi oo keliya ayaa ku filnaanaya. kanna isaga waxaa ka waajibayo dhiig ayaa ka waajibaya. shaaficiyada marka madhabteena iyadu waxay fadli badinaysaa ifraadka, waxay ku xijinaysaa tamatuca, waxa u dambeeya qiraanka. laakiin sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tamaniyey oo uu jeclaaday oo uu yidhi haddii aan muxuu ahay aan ogahay low istaqbaltu min amri mastadbartu lamaa suqtu lhadya. wax ku kalifaya ayaa jiray. tamatuc ayuu tamaniyey. laakiin sidee doonta ha noqotee saddexdaasiba xajka waa loo xiran karaa. haddase soomaalida markii ay xajinayaan oo ay xajka aadaan inta badan ama kulligood ama badankood 99% ka badan ama 90 aan dhaho ka badan waxay xajkooda ka dhigaan tamatucay ka dhigaan. oo halkaanay ka baxaan makay tagaan waa cumraystaan kadib waxay iska noqdaan xalaal yowmu tarwiya ayay acmaashooda gutaan neefna iska bixiyaan. saasay marka soomaali u badan yihiin. hadhow marka aan sharxi doono aan baragtikeyn doono labadaba saddexda noocba waa ku samaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. waxaa marka su-aasha tahay waa inaa xarmanaan yidhi xaggee ka xarmanayna? xaggee la xarmanayaa? goormaasa la xarman karaa? xarmashadu waqtina way leedahay, goob laga xarmadana way leedahay. oo haddii aadan goobtaasna ka xarmanin waqtigaasina aadan xarmanin oo xajkaaga iyo cumradaada aysan sax noqonayn. waxaa jira wax la yidhaahdo almawaaqiit alzamaniya walmakaaniya. goobaha ama waqtiyada iyo amaakinta xajka. midka koowaad oo xagga zamanka ah waa bishan hadda aan ku jirno shawaal iyo dilqicda bisha ku xigto iyo carafada 10 maalmood oo ku jirta weeyaan ugu soo horeyso oo acmaasha xajka la gudanayo. marka acmaasha xajka haddii xilligaas ay ku dhaafto oo maalintii loogu talagalay wuquuf carafo ku dhaafo fuqahada aqwaal badan ayay leeyihiin xajkii ma soo gudayaa suu yeelayaa. laakiin sida hadda annaga aan rabno inaan darsiga u sharaxno aan ugu talagalnay inaanan dadka ku waalin ikhtilaafaad iyo maxaa ka ansaxaya iyo intaasoo maalmood weeye acmaasha xajka xilliga la gudanayo. mawaaqiida marka laga hadlayo xaggaas waaye. makaanka marka xaggee laga xarmanaya? nabiga calayhi salaatu wasalaam amaakinu u sheegay. amaakintaasi qolo walba waxaa la rabaa markay xajka xarmanayaan in ay amaakintaas ka xarmadaan. dadka soomaalida ah ayagu laba meel bay badanaa ka xarmadaan marka laga soo tago dadka dibadaha kale kasoo xajinaya. laakiin dadka soomaaliya ka dhoofaan sheegayaan labada meel waa kusoo dhex daraynaa. laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey amaakinta kow dalxulayfa. dalxulayfa waxaa loo sameeyey in ay ka xarmadaan dadka madiine ka baxaya. soomaalidana sidaas oo kale way soo galayaan oo xilliga marka madiine la joogo dadka madiine ay tagaan acmaasha meesha ka gutaan dalxulayfa mari doonaan. dalxulayfadaasi marka waa meesha nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka xarmaday ama abaar cali magaca doonta u bixi. marka dalxulayfa waa meesha kuway ka baxayaan. sidoo kale yalamlam ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u xadeeyey. yalamlam marka waa loo jeedaa annaga iyo dadka ahlu yaman meesha ay ku yimaadaan ayaa yalamlam la dhahaa. yalamlamtaasi marka waxaa la rabaa annaga markii aan ku aadannahay diyaaradaha noo sheegayo waa sharxi doonaa. waxaa jirto markaan xajka inaan aadna goosano laba dariiqay noqonaysaa. in laguu sheego toos waxaa u tagaysaa maka in lagu dhaho. markaasi waa inaad dharkaaga gashato qabaysato wixii aad samayn lahayd inaad samayso sidaa marka aad ku baxdo xajkii aad ku aado. markay diyaaradda dhexda marayso waxaa lagu leeyahay marka cumradii waa la joogaa hala xarmado. markay ku dhahaan wixii aad damacsaneeda xarmanaysaa. marka tamatuc miya ifraad miya qiraan miya? haddii ay kuu sheegaan in madiine la tegaayo oo waqtiga madiine la tegaayo la joogo wax aa xarmanaysid maleh sidaada ada u libisan oo dharkaagii wato ayaa iska baxaysaa madiina tegaysaa. 3 maalmoodaa badanaa la joogaa madiino. acmaal la qabtaa jirto dirsiga gaara ku sharxaynaa
inta aan madiina joogto maxaa qabane darsigaanan ku sharxi doonaa insha allah. acmaashaada marka aad dhamaysato, marka madiina ku dhamaysato waa soo baxaysaa, markaasaad soo qabaysanaysaa, maryahaaga cad xiranaysaa, dalxulayfa imaanaysaa, dalxulayfa kasoo xarmanaysaa. waxaa la mid tahay qof reer madiine ah oo madiine kasoo xarmaday. saasaa marka haddii cumra u socotay iyo haddii xaj u socotay acmaashaada dhammaanteedba aad usoo xarmanaysaa. sidoo kale qarnu manaasil ayaa jirto oo iyadana meelaha laga xarmado ah iyo daatu cirqin. laakiin reer maka xaggee xajka ka xarmanaya iyo anaga nafsadeena markii inta baxnay meesha aan tagnay oo aan tamatuc samaynay oo cumradii aan gudanay oo iska joognay, maalinta muxuu 8aad marka la gaaro xaggee ka xarmanayna? ma inaan soo baxno miiqaad soo raadina miya, mise meeshii aan joogna ka xarmanaynaa? markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam min ahli maka, wixii ahlu maka ah iyo wixii markaa la joogaba maka ayay ka xarmanayaan. laakiin haddii cumro noqoto, cumrada guryaha lagama xarmanayo, waa in la aado miiqaadkeeda in la aado ayay noqonaysaa. sidaasaa marka nabiga calayhi salaatu wasalaam mawaaqiidana uu noogu kala cadeeyey, oo ama mawaaqiidaas la-aanteed xajka uusan ka ansaxaynin. qofka marka haddii miiqaadka ka hor uu xarmado ama miiqaadka u dhaafo, waa fahmi kartaa labadaba. kan miiqaadka ka hor waxa weeye xajkiisa dhaawac uma geysana, laakiin miiqaadka hadduu dhaafo oo xajkii uu ka gudbo oo meeshii uu tago damaa ku waajibayo weeyaan. marka axkaamtaasi waa axkaamta guud ahaan aan rabnay in aan si kooban u sharaxno. mid walba wuxuu u baahan doonaa tafsiil. waxaan samaynaynaa marka aan tadbiiqa gaarno ayaan waxaan dhihi doonaa ixraamka markaan qaadano maxaa nala gudboon oo waajib ah oo aan samaynaynaa. dawaafka markaan joogno maxaa nala gudboon aan samaynaynaa. sacyiga markaan joogno maxaa nala gudboon oon samaynaynaa. sidoo kale xajka markaan joogno maalinta 8aad maxaan qabanaynaa, maalinta 9aad maxaan qabanaynaa, maalinka 10aad maxaan qabanaynaa, maalinta 11aad, maalinka 12aad. sidaas ayaan ku wadaynaa insha allahu tacaala. markii xajka noo soo dhammaado oo maka aan joognone maxaan samaynaynaa oo acmaal ah inta aan joogno, iyo sidoo kale marka aan cumraysano cumrada kale aan ka gaarayno maxaa acmaal ah oo aan samaynaynaa. waxaa nafteyda in nafteena u dardaarmaya in aan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisano inuu na waafajiyo gudashada xajka. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa in dadka ilaahay uu u sahlay inay sanadkan xajiyaan, xajkooda ilaahay uu ka aqbalo subxaanahu watacaala, camalka kiisa wanaagsanna uu waafajiyo. jazaakum allahu khayran. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.